السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelka Rumee Riyadaada. Channelka Rumee Riyadaada waxaan ugu talagalay inaan ku dhiirigelino dhalinyarada Soomaaliyeed oo aad moodo waayada dambe inay ka hadlayaan dhalinyarada caalamka, gaar ahaan xagga dhaqaalaha iyo horumarka. Channelkan waxaad ka heli doontaa tilmaamo, xigmado, wacyigelin iyo weliba aragtiyo aan ka soo ururinay aqoon-yahano dunida guudkeeda saaran iyo kuwii soo marayba. aqoon-yahanadaas oo weliba xirfadoodu ay inta badan ka hadleen xagga horumarinta iyo kobcinta dabeecadda iyo dhaqaalaha, si aad uga yaraan u hesho tallaabooyin wax ku ool ah oo aad wax kaga beddesho naftaada. Haddaba la soco channelka, lana wadaag asxaabtaada. hadda videoga ugu horeeya ee aan maanta soo bandhigi doono waxa uu ku saabsan yahay fekerka. haddaynu Soomaali nahay, fekerka waxaynu u naqaanaa wax laga fogaado oo dhibaato ah, waxaana isaga keen dhex qasmay laba eray oo mid yahay midna feker yahay midna welwel yahay, waana laba eray oo kala duwan. fekerku waa qiimayn aad qiimayso xaalad u baahan markaa iyadaa inaad waqti geliso si aad wax uga beddesho. welwelkuna waa dhibaato naftaada haysata oo caqabad ku ah caafimaadkaaga iyo horumarkaaga labadaba. sidaa darteed horta marka hore waa inaynu kala saarno fekerka iyo welwelka waxay kala yihiin. haddaba ujeeddada fekerka waa inaad xisaabiso wax walba si aad u ogaato qiimaha iyo xaaladda waxaad ka fekeraysaa uu ku sugan yahay, iyo inaad wax ka beddesho iyo in kale go'aanka gaadhistiisa. waxa aad ka beddeli doonto xaaladda, meeshaad u mari lahayd, sidaad u maarayn lahayd wax ka beddelkaa, waqti intee leeg buu kaa qaadanayaa, iyo juhdi intee leeg baad rabtaa inaad geliso wax ka beddelka arrintaa, iyo inaad weliba sidoo kale shaygaba laftiisa intaad laalaabto meel dhigato bal mar kale dib ugu noqoto, maadaama hadda xaaladiisa aadan waxba ka beddeli karin, balse waa xaalad meel ku taallo ku sugaysa inaad dib ugu noqoto markaad waddo u hesho. haddaba fekerku wuxuu leeyahay faa'iidooyin aad u tiro badan oo horumarka bilowgiisaaba ah fekerka. waxaa xaqiiqa in culimada ku takhasustay horumarka bulshada iyo wax ka beddelka nolosha qofka bini'aadanka ah waxay isku raaceen qofka bini'aadankiihi si uu xaaladiisa wax uga beddelo 3 shay ayuu u baahan yahay, ama 3 tallaabo inuu qaado oo isxiga. tallaabada u horeysa waa inuu ka fekero arrinta uu rabo inuu wax ka beddelo, oo uu qaab iyo waddo iyo maarayn u sameeyo, iyo si uu ugu tallaabsado tallaabada qaabka ugu dhaqaaqi lahaa iyo halka uu mari lahaa. hadduu doono hala kaashado asxaabtiisa iyo qofku aqoon dhaamaba. tallaabada koowaad horta waa fekerka. tallaabada labaad waa inaad ku darto dadaalka waa tallaabada labaad oo dadaal haddaba aan kala joogsi lahayn, oo aan ka samir lahayn, oon ka quusasho lahayn, oo ku celina xitaa hadday adkaato aada marnaba ka noqonaynin oo go'aan ah. ta labaad waa go'aan adag oo aad ku adkaystood ku dhaqaaqdo. tan saddexaad oo ah adkaysi iyo dulqaad inaad u yeelato ilaa aad ka midho dhaliso go'aankaaga, ka midho dhalintiisa. haddii saddexdaa qofka bini'aadanku israaciya ayay isku raacsan yihiin culammada la yidhaaha psychiatrist ama psychologyga ku takhasustay, waxay isku raacsan yihiin saddexdaa qofku hadduu isdaba dhigo, oo ah marka hore inuu fekero, marka labaad inuu go'aan qaato oo go'aankaa ku dhaqaaqo, marka saddexaadna inuu dulqaad u yeesho ilaa uu ka midho dhaliyo go'aankaa. waxaa hubaale bay yidhahan qofku meeshuu doono inuu gaadho hadduu saddexdaas uuna ka quusanin. haddaba daawadow isweydii su-aashan, saddexdaa ma awoodaa? jawaabtu waa go'aan adiga ku gaara, balse anigu taladan kugu darsanaya waxay tahay xusuusnow naftaada adiga
ayaa u maqan macnihii naftaada cid kale oo wax ka bedelaysa ama u qabanaysa ama u bedelaysaa ma jirto aduunba ku sugaysaa taadoo maskaxda ku haya go'aankaaga gaad fideogani waa naga intaaba mar kala kulmayno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu